اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله maanta barnaamijkeena hadii aan waxaan rabaa inaan la wadaago qaabka loo design gareeyo YouTube banner ama sawirka sare ee YouTube-ka. Muuqaalkan wuxuu aad u anfacayaa asxaabta channel YouTube isticmaashay aad u anfacaya ama kanaalo leh ayuu aad u anfacayaa. Waxaynu isticmaali doonaa marka si aan u design gareyno Adobe Photoshop, sidoo kale waxaad isticmaali kartaa Illustrator-ka, aad isticmaali kartaa asxaabta wax ku design gareysa moobiladooda. waxaan idin la wadaagayaa idinka sawirkan qaabka loo isticmaali doona insha Allah. muuqaalkan ayaan ku sharxi doonaa iyo sida loo sameeyaba. waxaan soo dhigi doonaa sawirkan insha Allah groupka Telegram-ka ayaan soo dhigi doonaa. groupka Telegram-ka hadii aad wali ku soo biirin linkiisa waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka. hadaba aynu gudgalno barnaamijkeena. ugu horeyn intaanu gudgalin barnaamijkeena waxaan ka codsanaynaa kanaalka Muuqaal Production. hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar, videogana like saar. like muuqaalku waxyaabo badan ay u tartaa YouTube-kan dad kale ayuu sii gaarsiinaya. aad u mahadsantiin dhamaantiina. ugu horeyn marka waxaanu sameyn doonaa size ugu weyn ay ku qoran tahay TV oo cabirkiisu uu yahay width-ka 2560, sidoo kale high-gana uu yahay 1440. marka asxaabta ka soo booqata kanaalkaaga oo isticmaasha TV size-kan ay u soo muuqan doonaa. marka waxa waajib kuga marka si aad u design gareysid bannerka YouTube-ka size-kan ugu horeyn inaad sameysid. hadii aad u baahan tahay waa design gareyn kartaa, hadii aadan u baahnayn waad iska deyn kartaa. marka waxaan sameynayaa new document ayaan soo furanayaa, control N ayaan leeyahay. marka size-ka kan TV-ga ayaad ugu horeyn sameynaysaa oo width-kiisu uu yahay 2560, sidoo kale high-gana uu yahay 1440. qaybtan title-kan waxaan ku qorayaa banner YouTube aan ku qorayaa. marka orientation-kan iska fiir inuu ku saaran yahay horizontal-ka ama jiif-jiifka, vertical-ka iyo ka saarnaanin. waxaynu ku dhufanaynaa marka qaybtan ay ku qoran tahay create aynu ku dhufanaynaa. marka size-kan hadda aynu sidan ku sameynay oo cabirkiisu uu yahay kan TV-ga waa midka aad ku upload gareynaysid YouTube-ka. hadii size-kan wax ka yar meesha aad la imaatid ogolaanaya YouTube-ka. marka sidoo kale waxaynu sameyn doonaa saddexdan size aynu sameyn doonaa kan mobile-ka, sidoo kale tablet-ka iyo desktop-ka. mobile-ka waxay ka macno tahay asxaabta isticmaasha telefoonadka ka soo boonqanayaan kanaalka size-ka ay arki doonaan banner-kaaga, iyo sidoo kale kan tablet-ka iyo desktop-kan asigana waxa way computer-ka waa. marka saddexdan size meeshan ka muuqdo dhowr way aad u sameyn kartaa. aniga waxaan isticmaalay rectangle ayaan isticmaalay. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa hadii sawirkan uu ku soo gaaro waxaad isticmaali kartaa roulette-kan aad isticmaali kartaa oo Photoshop-ka. marka aniga roulette ma isticmaalay, waxaan isticmaalayaa rectangle ayaan isticmaalayaa. rectangle-ka marka midkan ugu horeeya desktop-ka size-kiisa hadhow inta ka fiirso. marka waxaan soo dooranayaa rectangle ayaan soo dooranayaa shape-iska, kadib meel banaan ayaan imaanayaa, click ayaan ku siinayaa. kadib width-ka waxaan ka dhigayaa balac. waxay isku mid yihiin TV-ga 2560. sidoo kale qaybta high-gana waxaad ka dhigaysaa 423 ayaad ka dhigaysaa. adi meesha aad ka fiirsan doontaa insha Allah. marka inta markaynu sameyno waxaad u soo laabanaysaa move tool-ka. sidoo kale waxaad isla dooranaysaa rectangle-ka iyo background-ka adigoo shift-ga haya. kadib align horizontal-ka ayaad click ku siinaysaa, sidoo kale align vertical-ka ayaad click ku siinaysaa. sidaan center-ka ku keenay size-ka desktop-ka. sidoo kale waxaan u baahanahay inaynu sameyno kan tablet-ka. marka tablet-ka size-kiisa meesha ayuu ku saaran yahay, asigana meesha ka fiiri. size-ka tablet-kan waxa waaye 1855. waxaynu soo dooran doonaa qaybtan rectangle-ka ayaan soo dooranay, meel banaan ayaan click ku siinayaa. width-ka waxa waaye 1855. high-ga isku mid waaye asiyo kan kale oo desktop-ka 423 waaye. kadib okay aad ku dhufanaysaa. sidoo kale move tool-ka aad click ku siinaysaa. dhammaan marka waxyaabaha aad sameysay marka rectangle-kan aanu ka bedelno color-kaasi ay separate u kala noqdaan, loo kala aqoonsado. sidoo kale saddexdooda hal mar aad isla wada dooranaysaa, selection-ka aad saaraysaa. qaybtan kore align horizontal-ka aad click ku siinaysaa, sidoo kale align vertical-kana click aad ku siinaysaa. marka sidaan haddana waxaynu ku sameynay size ah kan tablet-ka mobilada tablet-ka asxaabta isticmaasha soo booqata kanaalkaaga size-ka u soo muuqan doono. sidoo kale waxay noo dhiman size-kan mobile-ka ay noo dhiman waa midka ugu badan ee la isticmaalo waaye kan mobile-ka. marka asigana width-kiisu waxa waaye 2546. sidoo kale midkan aynu soo laabanaynaa rectangle-ka ayaan soo dooranayaa, meel banaan ayaan click ku siinayaa 2546. high-gana waxa waaye isku mid waaye 423. kadib okay aad leedahay. okay marka dhaadeed sidoo kale kanna color-ka aynu ka bedelno. waxaynu sameynaynaa marka dhammaantood hal mar ayaan wada dooranay anigoo shift-ga haya. sidoo kale move tool-ka aad u soo laabanaysaa, align horizontal-ka aad click ku siinaysaa iyo align vertical-ka. marka asigoo diyaarsan oo sidaan aan waxaan idin soo dhigi doonaa insha Allah qaybta groupka Telegram-ka idin soo dhigi doonaa. marka hadii aad u baahan tahay marka barashadiisa qaabka loo sameeyna waa sidaan. marka hadda waxa sidaan diyaarin ugu ah qaybta TV-ga oo midka cadaanka aad u jeedin, cadaankan aad u jeedin xoga background kale aynu sameynayna rectangle aynu sameynayna midkan kore ee background-ka. waad u jeedinayaan filaya
sidaan aynu ku design gareynay afarta size ee ugu muhiimsan qofka markii rabo inuu design gareeyo YouTube banner inuu isticmaalo kan TV-ga sidoo kale mobile-ka tablet-ka iyo desktop-ka dhamaantoodana waxaynu ka sameynay rectangle aynu ka sameynay anagoo isticmaalayno mid walba size-kiisa marka size-ka markaas sidaan aad u diyaarsatid waxaad sameyn doontaa fikirkaada aad la imaan doontaa fikirkaada aad ku design gareyn doontaa marka mid aan design gareyn idin la wadaago hadda midkaan aad u jeedeen size-kan qoraalkaaga information-ka YouTube-kaaga waxaad ku soo koobi doontaa midkaan gudaha aad ku soo koobi doontaa oo mobile-ka aad ku soo koobi doontaa haddii aad u baahan tahay tablet-ka aad ku darsan kartaa desktop-ka aad ku darsan kartaa balse waxaad xoog saartaa midkaan mobile-ka aad xoog saaraysaa maadaama dadku ugu badan ay isticmaalaan mobilada marka midkaan aad xoog saari doontaa midkaan hadda aad u jeedeen banner-kan sare ee YouTube-ka aan design gareeyay information-kan oo idil waxaan ku soo koobay qaybta mobile-ka aan ku soo koobay marka waxaan rajaynayaa dhamaantiin inaad wada fahanteen qaabka loo design gareeyo banner-ka sare ee YouTube-ka adigoo isticmaalaya afartan size ee loogu talagalay banner-ka sare ee YouTube-ka marka hadhow markaad fahantid qaabka loo sameeyo sizeskan fikirkaada aad la imaanaysaa design-ka marka qof walba sidoo rabo ay u design gareysan karaa insha Allah intaan aan ku soo gabagabeyn doonaa walaalkiin Adam Nur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh